kobcinta kor qaadida garaadka daayartu waa mid kamid ah tiirdhaxaadka ama horumar bulsho goobkooda dhaqan ay gaaraan 173 arday oo noqonaya dufcadii 14aad ayaa maanta ka qalin bedelatay dugsiga sare ee Ilay Secondary School ee magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool waxaana munaasabadii qalin bedeshada ka soo qayb galay macallimiin mas'uuliyiin waalidiinta ardayda maanta qalin jabinaysa iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan Arjo debe
ugu horeyntii waxaan halkaasi ka hadlay maamulaha dugsigaasi wuxuu ka sheekeeyey maraaxilkii kala duwanaa ee dugsigana soo marayay sidoo kale ardaydan maanta qalin bedelanaysa الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه ثم ما بعد dhammaan martisharafta kala duwan ee ka soo qaybgashay xafladda ay ugu horeeyaan odayaasha oqaasha bacda waxbarashada jaamacadaha ardayda qalin jabinaysa waalidiinta shirkadaha bacda saxaafadda dhammaantan martisharafta kala duwan ee ka soo qaybgashay magacyada aan soo wada koobi karin waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu intaa kadib allah subxaanahu watacaala waa maanta koowaad iska leh waxaan u mahadcelinaynaa dadka waqtigooda soo huray runtii wixii ugu qaalisanaaya anagu waan kana raaligelinaynaa xilliga habsanka aanu ku talagelin asaan kaba dadaala waan yara habsaanay marka aad iyo aad baan uga xunahay kaalehaada aan leeyahay martisharafta kala duwan ee qiimaha badan runtii maanta waxaynu isugu nimi xafladda qalinjabinta ama maamuuska iyo qalinjabinta dafcaddii 14aad ee dugsiga sare ilaa Laascaanood tii 14aad maanta qalinjabinaysa marka ugu horreyn waxaan leeyahay ardayda qalinjabinaysa hambaliyo ayaan leeyahay aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan maanta halkan isugu nimaano idinkoo marxaladda soo gaadhay oo markii meeshii ugu dambeysay iskuulka gabagabadiisii halkan soo gaadhay aad baan u faraxsanahay waxaan ogaadinaynaa oo u mahadcelinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay in ardayda halkan soo gaadhaan ay ugu horeeyaan waalidiinta runtii qiimaha badan ee soo garab taagay iskuulka iyo ardaydaba oo ku soo dadaalay inay halkan yimaadaan macallimiinta iyo cid kasta oo gacan ka geysatay maanta ardaydu inay halkan soo gaadhaan marka insha allah waan soo koobi doonaa hadalka maadaama ay dadka u badan fadhiyeen marka mahadcelin kadib maanta ardayda qalin jabinaysa oo arday 170 ku dhow marka waxaan rabaa inaan yiraahdo oon sii wada insha allah dadaalkeen ku soo badanay iyo sidaad wax u wadeen hadda muddo dheer bay soo wadeen marka insha allah waxaan sii rajaynaynaa dadaalka iyo go'aanka waxbarashada aad ku sii wadaan ay soo dadaasheenba inaad sii laba jibaartaan siina wadaan insha allah in kana harin kana rajaynaya cid kastana waxaan rajaynayaa iska rab taagaan waxaan iyadana sidoo kale halkan rabay inaan uga gudbiyo qolyaha madaxda jaamacadaha iyo shirkadaha way cid kasta ka geysan kartaa in ardayda laga caawiyo waxa loo yaqaano jaamacadaha oo jaamacadaha kale wixii ay ka qaadi karaan qoyska sanadka hore kala dhacday xumay macallimiinta filan baaraxasna baad ilay soo xoray jaamacada gelisoon sanadka hore bilaabay ardayda sanadka hore kan dhowr arday ku balan qaadeen way bilaabeen ku guuleysteen insha Allah kuwan waxaan rajaynayaa ardayda kaalmaha fiican ka shaqo ama kuwa fiigas ka bixin kara duruufooda iyo rajicsan yihiin oo kale in laga caawiyo wixii waxbarashada laga caawin karo waayo duruufta waxbarashada sanad hadda xilligan la joogo waalidiintu waxoogaa culays bay ku tahay waliba mar kasta ardayda maxaa ka sareysiin karaan marka iyagana waa ka rajaynaynaa qolada shirkadahan iyana waxa ganacsatada waxaan rajaynayaa inay ka qayb qaataan guud ahaanba ay waxbarashada ardayda jaamacadaha oo kale sanadkeeda dadka ka bixin kartaan laba saddex tii bixin kartaa iyaduna ay ka qayb qaadato iyana insha Allah waan rajaynaynaa inay ay naga qayb qaataan haddii alla idmo oo dadka ardayda dhowr qof jaamacadda u dhigtaan oo kale xaliyeen ku cuslaato dadka aan iska bixin karin ay jiraan kuwa fiican kaalmaha galabta dhiirgelin buu noqonaysaa marka iyadana codsigaana waa jeedin lahaa waan bogaadinayaa ardayda iyo cid kastoo waqti soo gelisay sharafkana waa aad iyo aad baad mahadsantihiin waad noo soo horteen wayna mudnayd oo dhallinyaradeenna iyo ardayda dadaashay ee waxbarashada muddada ku soo jiray maalintan oo kale in la dhiirigeliyo xafladooda lagala qanooga dhacay marjeynaya marka aad iyo aad baan haddana noo baxday guud ahaan baan u bogaadinaynaa sharafta kala duwan ardaydana waxaan u leenahay insha Allah sii dadaala cilmigeena kororsiga sii wada jaamacadaha lagu wada biiro cid waxbarashada aan dhexda ku joojsanayaan la arkin insha Allah walanteenu saas ahayd horena wala inaga bartay inaad waxbarashada sii wadaan oo inta badan ku sii dadaashaan maantana soo dhabar aragteen in badan oo ka dhaman way sii sugaysaa inaad sii wadaan sii rajeenaya marka mar saddexaad iyo mar afraad waxaan leeyahay hambaliyo aad iyo aad baad ugu mahadsantiin waxbarashada aad ugu soo dadaasheen mana dheerayna intaas ku soo koobaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh
محمد أحمد شامع محمد بدان شيء بدان ميديا الله سعانه